halkani waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo wuxuu ka mid yahay dalalka ugu dagaalada badan qaaradda Afrika sidoo kalena ugu saboolsan. The cobalt mines of the Congo. الكوبالت معدن الغد أو معدن المستقبل. waxaa ku jira dhulkiisa mid ka mid ah macdanta ugu qaalisan adduunka laguna raadinta badan yahay. Taleefanka aad iga daawanaysid hadda iyo sidoo kale taleefan walba oo yaala adduunkan ma shaqayn karo macdantan la'aanteed. waxaynu u jeednaa macdanta loo yaqaano coltan. haddaba maxay tahay macdantan? maxaase loogu tilmaamaa inay tahay macdanta ugu halista badan adduunka? maxaase ka dhigay shirkado sida Apple, Samsung iyo Tesla kuwa ku dul dagaalama dalkan saboolka ah? su'aalahani oo dhan waxaynu jawaabtooda ku ogaan doonaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Bari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaynu nu gelin muuqaalkeenna maanta waxa ka jira guud ahaan gobolada dalka abaaro ba'an oo galaaftay nolosha dadiyow iyo duniyaba. haddii aad heli kartid saddexda waqti waxaad cuntid iyo biyo aad cabtid, waxaa jira dad aad walaala tihiin oo aan maalmo iyo isbuuciyo afkooda waxba marin kuna nafbaxaya waddooyinka iyo duurarka. haddii aad haysatid waxaad ku garab istaagi kartid, ha noqoto xitaa 1 shilin ama $1, ha ka hagran inaad ku garab istaagtid walaalahaaga baahan. waxay sugayaan maanta ilaahay ka sukow garab istaaggaaga iyo garab istaaggeenaba. ugu hagaaji wixii aad awoodid hay-adaha iyo samafalayaasha aad ku kalsoon tahay ee isku xilqaamay garab istaagga dadka ku waxyeeloobay abaaraha ka jira dalka. aynu u galno muuqaalkeenna maanta. qaaradda Afrika waxaa lagu naanaysaa inay tahay qaarad dulman, qaarad oo Alle ugu deeqay macdano iyo kheyraad la'aantood aysan jiri lahayn dhammaan tiknoolajiyada iyo rafaahiyada adduunku maanta ku jiro. xilliyadii hore waxaa lagu dagaalami jiray oo dalalka adduunka ugu cududda badan ku loolami jireen si ay u bililiqaystaan macdantii dheemanta ahayd ee dalka Sierra Leone oo aynu dhammaanteen ognahay maanta meeshii uu ku dambeeyey dalkaasi. waxaa ka dilaacay dagaalo iyo xanuuno ka reebay dalkan dalalkii asaagii ahaa. waxaa sidoo kale jiray geedka loo yaqaano kakawda oo ah geedka laga sameeyo shukulaatada kuna tiirsan tahay samaynteeda. waxaynu u jeednaa shukulaatada dhaqaalaha dalal badan oo adduunka ku yaala sida dalka Switzerland. dalka ugu badan ee geedkan kakawda laga soo saari jiray dhulkiisa wuxuu ahaa dalka Ivory Coast. isaguna wuxuu maanta la daaladhacayaa gaajo, saboolnimo iyo xasilooni darro joogto ah. waxaa sidoo kale xilliyadii dambe ku soo biiray macdanadan la isku dagaalayo, macdanta loo yaqaano coltan oo ay ku hardamayaan heliddeeda shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara taleefannada gacanta, gawaadhida korontada ku shaqeeya iyo sidoo kale kombiyuutarada. haddaba maxay tahay macdantan? maxaase loo adeegsadaa? macdantan loo yaqaano coltan waxaa laga soo saaraa cureyaal la kala yidhaahdo tantalum iyo niobium. sidaynu soo sheegnay keedka ugu badan ee macdantan wuxuu ku yaalaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, waxaana gacanta ku haysa shirkad la yidhaahdo SMB. hay-adda sahminta geologiga ee Maraykanka ayaa sheegtay in sanadkii 2019 Jamhuuriyadda Congo ay soo saartay keligeed 39% macdanta coltan ee loo suuq geeyey sanadkaasi adduunka oo dhan. macdantan lacagta ka soo baxda ayaa lagu maalgeliyaa maleeshiyaadka iyo jabhadaha dagaalka sokeeye ka wada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. guddiga badbaadinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalka ka socda Jamhuuriyadda Congo uu galaaftay nolosha in ka badan 5.4 milyan oo qof 10kii sano ee ugu dambeysay. coltan waxaa loo adeegsadaa sidii aynu horey u soo sheegnay soo saarista curiyayaasha loo yaqaano tantalum iyo niobium. curiyayaashan ayaa loo adeegsadaa soo saarista waxa afka qalaad lagu yiraahdo capacitoriska oo loo adeegsado aalado badan oo elektaroniga ah. aaladan ayaa ah keediye u shaqeeya sida bateriga oo kale, waxaana loo adeegsadaa aalado badan oo elektaroniga ah. coltan waxa uu muhiim u yahay soo saarista taleefannada gacanta iyo capacitoriska tantalum
oo loo adeegsado ku dhowaad nooc kasta oo ah qalabka elektarooniga ah oo ay ku jiraan bikaacooyinka ama lensiska kaamiradaha, taleefannada, qalabka wax lagu daabaco, qalabyada caafimaadka ee wadnaha iyo kuwa maqalkaba. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa soo saaridda kombiyuutarada iyo adeegyada raadiyaha sida mawjadaha gaagaaban iyo kuwa dhaadheerba. Colton waxaa kale oo loo adeegsadaa in lagu sameeyo aalado heerkulkoodu sareeyo oo loogu talagalay motorada jeedka ah. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa soo saarista marwaxadaha sida kuwa diyaaradaha iyo kuwa caadiga ah ee aynu adeegsanno. astaamahan muhiimka ah ee ay leeyihiin labada curiye ee laga soo saaro macdanta Colton ee kala ah tantalum iyo niobium iyo waxtarkooda la jaanqaadaya casriga cusub ee aadamaha ayaa ku dhiirigeliyey dalal horumaray iyo shirkado badan oo caalami ah inay raadiyaan macdantan. qaar ka mid ah shirkadaha isticmaala Colton ee iibiya alaabta elektarooniga ah ee Maraykanka iyo adduunka oo dhanba waxaa ka mid ah shirkadda AMD, shirkadda Apple, shirkadda Dell, Microsoft, Motorola, Nokia iyo shirkadda Kanadiyaanka ah ee loo soo gaabiyo RIM. shirkaddan ayaa ah shirkadda soo saarta aaladaha loo isticmaalo isgaarsiinta, waxayna caan ku tahay taleefanka loo yaqaano BlackBerry. shirkadahani waxay qaadeen tallaabooyin kasta oo ay ku heli karayeen si ay gacanta ugu dhigaan una baartaan macdanta Colton. waxay sidoo kale riixeen sharciyo badan oo muujinaya danaysi gaar ah, waxayna gacansaar joogto ah la leeyihiin hoggaanka iyo madaxda dalka Congo si ay iyaguna ugu sahlaan inay macdantan ku helaan hab musuq badani uu ku jiro. marka aad joogtid dalka Congo, macdan qodistu waa isha ugu habboon ee aad dakhli ka heli karto, sababtoo ah shaqadani waa mid si joogto ah wax looga heli karo xitaa haddii ay tahay $1 oo keliya maalintii oo dhan. sidoo kale shaqadani waa mid aad u adag. macdan qodayaashuna waxay maalmo u socdaan kaymaha laga qodayo macdantan si ay u gaaraan goobaha ay wax ka qodayaan. cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in qaar badan oo reer Kongo ah ay ka tagaan tabcashada beeraha sababo la xiriira inay si degdeg ah ugu baahan yihiin inay lacag ku helaan, mana sugi karaan inta ay dalagyadu ka korayaan kana soo go'ayaan. sidoo kale falashada beeruhu waa mid ay caqabadeedu badan tahay. tusaale ahaan, waddo la'aanta ka jirta gudaha Congo waxay sababtaa inay adkaato in wax soo saarka beeraha loo daabulo suuqyada. dalagyada soo go'ana waxaa qabsan kara mararka qaar maleeshiyaadka ama xitaa militariga dalkaasi. markii quudkoodii daruuriga ahaa ay caqabado badan la soo darseenna waxay miciin bideen beeralaydu inay u firxadaan ka xoogsiga macdanta. laakiin shaqadan ma ahan mid ay caqabadaheedu yar yihiin haddii aysan tii horeba ka khatar badnayn. badanaa macdan qodayaasha waxaa lala beegsadaa miinooyin, waxaana inta badan miinooyinkan soo abaabula kooxo maleeshiyaad ah oo la tuhmayo inay samaysteen waddamo iyo shirkado reer galbeed ah si ay iyaga oo keliya uga faa'iidaystaan macdanta Congo. iska horimaad ay ku jiraan qabsashadii Rwanda ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku adkeeyey dalka Congo inay ka faa'iidaysato keydkeeda Colton gudaha Congo. macdanta Colton inta badan waxa qota marka laga yimaado shirkado waaweyn oo shisheeye, farsamo yaqaano iyo kooxo yaryar oo xoogaysato ah, waxayna u nugul yihiin baad iyo dhac joogto ah. warbixin uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 2003 ayaa lagu sheegay in inta badan macdanta Congo si sharci darro ah loogu soo daabulo xuduudka bari ee Congo oo ay maleeshiyaad ka kala socda dalka Uganda, Burundi iyo Rwanda ay joogaan halkaasi. dhammaan saddexda waddan ee ay qaramada midoobay ku sheegtay inay yihiin mukhallasiin tahriibiya Colton ayaa beeniyey inay arrintan sameeyeen. dagaalada ka dhacaya Congo oo ay dhaliyeen dadiyow ay dantoodu tahay helidda macdanta Colton ayaa sababay khasaare kor u dhaafaya 5 milyan oo dhimasho ah iyo dhaqaale burbur aad u fara badan. ilaa iyo maantadan aynu joognana muhiimadda ay leedahay macdanta Colton waa mid si saa'id ah u sii kobcaysa. dowladaha, hay-adaha iyo shirkadaha bilyaneerada ahna waa kuwo ku loolamaya heliddeeda. marka laga soo tago Congo iyo Rwandana, meelaha kale ee laga helo macdantan waxaa ka mid ah galbeedka Australia, Canada, Brazil, Shiinaha, Ethiopia iyo dalka Mozambique. Colton waxa kale oo laga soo saaraa dalka Thailand iyo Malaysia.
haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah haddii dalka Kongo uu gacanta ugu jiri lahaa siyaasiyiin iyo madax ka fakaraysa danta dalkooda iyo dadkoodaba hanti iyo dhaqaale intee la-eg ka samayn lahaa dalkani oo midda kale saamayn intee la-eg ku yeelan lahaa siyaasadda adduunka aragtidaada ku aadan su'aashan noogu reeb kommentiyada hoose ee muuqaalkan intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh